mahadsantahay runtii usbuucan intii lagu guda jiray waxaa ku geeriyooday xabsiyada Israa'iil ama Yahuuda nin maxbuus ahay oo xirnay oo reer Falastiin ah oo la dhihi jiray Saama Abu Diyaak saa hore u sheegtay wuxuu u geeriyooday kansar oo muddo 5 sano laga deerinay xaaladiisa oo la dhahay ninka waa xanuunsan yahay ma arintiisa laga hadlo oo la soo daayo ama la siiyo daawooyin oo samata bixin karo marka 5 sano asiga xaaladiisa xanuunkaas soo jirtay oo soo jiitamaysay asigaas ayaa horta ku geeriyooday usbuucan xabsiyada Yahuuda waana maxbuuskii lixaad oo sanadkan soo bilowday oo hadda dhamaadka ku dhow ku geeriyooday xabsiyada Yahuuda waa hadda Cabduqaadir tiro oo rasmi ah oo maanta jango laga ma hayo tirada ku jirto Falastiiniinta ku jirto xabsiga Israa'iil laakiin qiyaas la sameeyay oo ah qiyaasadii u dambeeyay la sameeyay waxa lagu qiyaasay 650 ilaa 700 qof oo 6500 ilaa 7000 oo qof oo Falastiini ah tiro lagu qiyaasay ayaa ku jira xabsiyada Yahuuda oo gacanta ugu jiro oo qaarkood ah kuwa ka tirsan ururada dagaalamaya iyo qaar iska shacab Falastiiniyiin ah oo guryahooda laga jibiyay ama xoog lagu watay marka intaas qiyaastaas ku jiro lagu qiyaasay inta ku jiri karto xabsiyada Yahuuda runtii marka qoyska Saama Abu Diyaak oo hadlay waxay sheegeen in wiilkooda uu u geeriyooday dayac oo caafimaad oo lagu la kacay intuu xabsiga ku jiray iyo ku andacooday in xaaladda saas ka roonaan lahayd haduu heli lahay la tacaalid ama gargaar caafimaad oo u baahnaysa horta intaan su'aashaas ka jawaabin waxaan rabay oo iloobay magaalada Gaza oo hadda ka dhacay tensionkan iyo duqeymahan runtii waa magaalo istiraatiiji oo muhiim u ah wadamo badan oo islaamka oo Soomaaliya ay ku jirto maxaa yeelay Soomaalida madhabkooda koowaad waa Shaafici markii Imaam Shaafici Maxamed ibn Idriis waa meesha ku dhashay Gaza saas daraadeed Soomaaliya markii laga soo tago istiraatiijiga islaamnimada iyo laga soo tago madhab ahaan Gaza waa meelaha u muhiimsan maadaama uu ku dhashay Imaam Shaafici marka su'aashaadii ahayd awoodoodii kooxaha Falastiiniinta kormay u sii kacay markii si loo fiiriyo kooxaha Israa'iil la dirsan oo Yahuuda la dirsan oo reer Falastiin awood ahaan waxay la socdaan casriga isbeddelay oo dunida waxayna leeyihiin kooxa kale oo calaaqaad la sida Xisbullah iyo kuwa kale iyo wadamo taageero oo islaamnimo u taageero iyo wadamo danahooda ka fiirsanayo wadamada taageero waxa kamid ah Iran iyo wadamo tiro badan marka waxay heli karaan hub casri ah qaarkood hubka iyaga farsamaysto oo gantaalooda qaar qasaam 4 qasaam 3 la kala dhaha iyaga farsamaysto qaarna waa la siiyaa ka tuujaha naftirkooda waa la siiyaa oo waa loo keenaa marka runtii taas waxay la jaan qaaday casriga oo heer ku gaaro tiknoolajiyada iyagana runtii kama marmo waa ka faa'iideystaan laakiin sida kale markii la fiiriyo culeysyada ay saari karaan Yahuuda furfurnaashada siyaasadeed runtii waa isleedahay waa ka soo hormareen oo waa ka bisil yihiin sidii waagii hore ay ahaayeen oo hadda waa ka hormarsan yihiin hadda waxay isku daraan badanaa culeyska siyaasadeed iyo culeyska gulufka isaga difaacayaan Israa'iil Yahuuda inta waa isku daraan marka taas ku cadeynaysa xogaha ilaa kor u sii kacayaan mid kalena waa jirtaa waa dhinac kalena waa Falastiiniinta runtii waxa runtii caqabad ku ah khilaaf iyaga dhaxdooda oo kooxahooda marka